الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. حديث كاس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحاوكو يمد صحابي حديث كورنا يا حكيم بن حزام أيا النبي قوي صلى الله عليه وسلم نين الاحترام وها إسلام ككهر الجاهلية دي رجي أضياشة الاحترام تشربوها. النبي قوي صلى الله عليه وسلم كدي من هو ويديست وحيسي يقول حوله يسي. النبي قوي يسي يقول مر لبعض ما ويديست يقول هذا نو يسي يقول مر صدحات ما ويديست يقول هذا نو يسي. النبي صلى الله عليه وسلم مر صدحات كي مركو يسي كدب والنبي قوي يقول حكيمو حولهني وعقار وأنا معان عدي حقه ذا كوقاتا والله بركيا عدي كوقاتا تهنقلتاك يرهادين عن حق هين طريقا صح هين كوقاتنا الله ما بركيا وحونا النقضاء سيد الروح وحونا هيون دركين أوكاله كعنت الصريع أياك خير بدل مده وصيصا. النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات كاسوسية. حديثك waxaa ku jira faa'iidooyin muhiim ah dhowr mowduuc buu taabanayaa. mid ugu horeysa wuxuu tilmaamayaa deeqsinimadii nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sida meel kale lagu tilmaamay wuxuu ahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kana ajwada an-nas dadku ugu deeqsisanaa nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. bal Anas ibn Malik wuxuu leeyahay wax lama weydiinin waligii oo uu diiday waligii wax la weydiistay oo uu hayo nabigu ma yama dhihin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. bal deeqda nabiga iyo siismadiisu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxay ahayd wax weyn buu bixin jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. nin baa u yimid markaasuu xoolo weydiistay waa nin wax yar badeeqi lahayd markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu siiyay ari laba buurood dhexdood buuxiyay dhul dhan ari buuxiyo tiradiisa aan la xisaabi karin buu nabigu siiyay sallallahu alayhi wasallam. waxay keentay ninkii inuu tago oo tolkii iyo qabiilkiisa u tago oo yiraahdo war tolkayow soo islaama diinta soo gala maxaa yeelay Muhammad sida uu wax u bixinayo waxaad moodaa siismada uu bixinayo ninaan faqri iyo baahi ka baqaynin siismadiisa oo kale u bixinaya. bimaana deeqsinimadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay keentay inay ummado dhan ku soo islaamaan. odayaasha kaaba qabiilada uu diinta u soo jiidayo boqol neef oo geela 200 oo geel uu nabigu siinayay sallallahu alayhi wasallam salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. ma aha inuu kursi ku ilaashanayay mana aha inuu magac iyo sumcad ku raadsanayay laakiin khalqigu ugu daneynayay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. faa'iidada kale xadiidku tilmaamaya waxa weeye adduunyada ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka bixiyay laba tilmaamood oo labadaba nafteenu jeceshahay. midabka adduunyada wuxuu ku tilmaamay inuu cagaar yahay dhadhankeedana wuxuu ku tilmaamay inuu macaan yahay. shaygu markuu midabkiisuna cagaar yahay dhadhankiisuna macaan yahay waa waxa loogu jecel yahay. ujeedaduna taas waa adduunyadu waa quruxsan tahay waa leynoo qurxiyay nafteena la jeclaysiiyay waa jeceshihiin waa qurxinta iyada ah ee adduunka leynoo qurxiyayna waa shabakada أما الدبن كالشيطان كبني آدم كل ميوي لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين تزيين كائي قرحين تائي الزخرفة الدنيا دا
ومد الشيطان كو دخ فديا واي دنك كلا إلهي وحو قلي آدمها أو كو أبوري إني أدونك جعلادان قريهيسا عنتديسا عبيتانكيسا شهواتكيسا مالكيسا إني جعلادان ببني آدم كإلهي كو أبوري حكمت با كو جرتا حكمت دا كو جرتا وحوي هدينا تشيري لهين جعيلك إلهي قلبك أو قليي قلبك بني آدم كأدونك لغو قرحية شهودي سلك قليي أدونك بني آدم كمع عمرين ما أوصن هرمريين موصن أطلباتودين موصن لسين اختراعات إيه هرمر موصن كينين محاكا كينيا إنتا صلبا إنو مرو إنو هردادا كتاقو إنتا صو خطرا إنو قالو إنو نسينا دوايو سيو وحو هلو أو أدسو أو أكسبو حتى ويساقو وحا أو هايستا أو كفلنيا وهدنا الرادينيا أو نسيا أو هرمرينيا ووح إلهي قليي لولا قلنتا سأين تشري لهينا أدونك بين آدم وما هرمريان دنكا وحكمة ربي وكدو قنوي مسألة دا دنكا كلمركات في رسالة خطر باكو تشرتو وامتحان سأصدرات إذا حديثك كالوحا كويمي إنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون إلهي با إذين ديبي وصا إذين كفيرين يا بلوحات سميسان كاللقا قدية وحوقا لسيين وامتحانيه كاللسيين اللقوب بديين وامتحانيه والله فيرين يا بلقاب كيقول رقمان في رضانا محا كدن بي امتحان يا أبا القدبا كدن بي ساس دراديت الدنيا ذو ودلاليسا وعقارنتهي وانا معانته نفتي انه واجعشهي وقضب ومقدمه وهرعوه وانا كو امتحان انتي سين امتحان كذا وقبت بالنا يا سكو دحي يا سكو باص النبي يقول صلى الله عليه وسلم روحي الدنيا ذا حق هذا كوقاته حولها حقودي طريقودي الصحده روحك كوقاته والله بركيه طريق الصحده هذو كوغو سو غلو طبعا ماشي لوغو تلغلنا او كاغا بخو marka dibkiisi iyo wuxuu la iimaan lahaana waad ka badbaadi waana lagu barakay habayaraado inta yartee barakaysan ayaa waxay dhaantaa wax badan oo aan baraka lahayn hadii xooluhu xalaal kugu soo galaan oo markay ku soo galiyeen aad ka dadaasho oo dariiqi ku soo galayeen aad ka dadaasho inta ilaahay ku soo galiyay oo ku sii horeyna kuugu qornayd horey bay u qornayd ilaahay wuxuu kaaga dhigayaa wax barakaysan nabigu sidaas uu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo xadiis kale nabigu ku daray sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamay arinta iyada maalinta qiyaamada ruuxu wuxuu kaga badbaadi karaa xoolaha fitnadoodii adduunka fitnadiisa qodobka hore iyo qodob labaad oo ah in uu markuu bixinayo ku bixiyo jid ilaahay masaakiin fuqaro dad baahan danihiisa ilaahay u xalaaleeyay caruurtiisa reerihiisa inuu khalqiga ilaahay xisaan u sameeyo marka ka dadaal kasabka iyo sidii xooluhu kugu soo galayaan markay ku soo galaanna ka dadaal meeshaad ku bixinayso ka fiirso inta haddaad xaqiijiso biidnillaah noloshaadu waa barakaysan tahay xoolahaaguna waa barakaysan yihiin fidnada iyo aafada adduunyadana waad ka badbaadaysaa nabigu wuxuu ku daray sallallahu alayhi wasallam jidka ruuxii ka leexday oo xoolihii iyo adduunyadii dhaldhalaalkeedii ku kadsooma oo dariiq khaldan ku qaata riba ku qaata boob ku qaata bililiqa ku qaata qish iyo khiyaano ku qaata isdawmarin ku qaata dariiq khaldan ruuxii ku qaatay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam loo barakayn maayo maxay tahay xoolihii waxay isu noqonayaan oo isu bedelayaan wax kulul oo lagu gubto lagu degi maayo lagu xasili maayo ya ruuxii waa baahan yahay isagoo hantiilo taajir ah waa hadana gubanaya xoolihii waa ku ololay waxba uma tarin waa mashquuliyeen oo aakhiradiisii bay ka mashquuliyeen markaasay khasaaro ku noqdeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah waman yafcal dalika faulaa'ika hum alkhaasiruun
waxay bilaabayaan maadaama baraka la'aan ay yihiin ujeedadii lagu abuuray adduunkaba u joogtay inay ka mashquuliyaan dikrigi ilaahay iyo cibaadadii aakhira inaad u shaqayso inay ka mashquuliyaan ha ahaatee inaadan ku degin oo ku xasilin saas daradeed baa nabigeena wuxuu yidhi wuxuu ahaanayaa sidii ruuxu wax cunaya oo haddana aan dhergaynin waa raadinayaa waa uruurinayaa waa kasbayaa waa dhisayaa haddana ma dhergayo ma qancayo ma xasilayo ma degayo ma soo afmeerayo لأن إلهي بقى وحكوت المعجزة النبي جينا كسر صلى الله عليه وسلم ابن آدم الدنيا ما تيقظه كمان السلقارو وحضر كيسا أقول يا بلي سيدي تنشر هنتي ديسا هو هايستو هدي سيدي تنصنو كالي لوغو در عمريجيس سيدي تنصنو عصب هذا هو بالعبط hantida uu haystana intuu meel dhigto uu maalinba uu soo siibto wax kale uu soo ku darin 80 sano soo socota bay ku filan tahay waana 80 jir cimrigaas wuxuu u kaba gashaday inuu riba qaato cimrigaas wuxuu u kaba gashaday inuu wax khiyaamo cimrigaas wuxuu u kaba gashaday inuu dariiq khaldan wax ku raadiyo maxaa ka baqan bal adigu isweydii مين حقيقة إن حوله سي أي خربين مين حقيقة إنه حولها عقوبة ودي هيو سيدا السؤال الله تبارك وتعالى وحول يسكو عجبين المنافقين تحوله هذا يعرور تودي يسكو عجبين الله وحول دون يا إنه كو عذاب الدنيا دا حوله هذا يعرور تودي بلقو عذاب يا كدي من النفط إنه يكبح ذو يجو قال نار تهريك آذان حوله هذا بعذاب كل نقضي والله هدتك قاركود ما أنت هدات فيرس سيء دقيهين هنتذا إلهي أسيء يسير أيهين مركات فيرس وحكوا صباحيسا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وعذابيه الدون كحوله دي بعذاب عرورته دي بيكو عذابيه سيدة تنشر عرورتي سيكوريي كرفاذي جامعة كساري وهذا مع ذلك ماشي للربيين أنفعان يسقي كسو جسدي يسقي كسو جسدي وارنتي وروديجي وارنتي أنا وحوس صدقينه هذا أنتم نولا محو وحوس صدقي سموها إنه قيبية ما بين ما هو نعضو عرور أبوهات بنتو هنتي بدن وقرنتي ayaa qaar waxay soo jeediyeen warduqi waa geeriyay waxana isaga kasbay aan waxooga u bixino war waxaas wax jira ma aha inoo qaybiya isaga baxsan laha intuu noolaahay waa istaahila insaan loola dhaqmo sababtu waxa weeye caruurtana diin ilaahay kuma korinin xoolahanina xoolo barakaysan ma ahayn sidaas daraadeed caruurtiisina lagu cadaab xoolihiisina lagu cadaab laana dariiq khaldan bay ka yimaadeen dariiq khaldan buu ku kasbay ilaahay waa kugu cadaabaya akhiira nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri gacanta sare waxay ka khayr badan tahay mid hooseysa macnaheedu maxay tahay gacanta wax bixinaysa ayaa ka fiican mid hoorsanaysa wax weydiisanaysa xakiim nabigu darsi wuxuu ku siiyay xakiimow dib dambe dad wax u weydiisanin khalqiga ka kaaftoon adigu midka wax bixinaya noqo ka wax qaadanaya wax weydiisanaya dawarsanaya gacanta horsanaya han noqonin waa darsi nabigu siiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi lianna waxa way ibn aadamka iyo khalqiga markastood u baahato waa duloobaysaa baahi badan waa la isku nacaa wajigaaga ruuxa markuu ku bato si kasta uu ku jecel yahay waa ku nacaya saas daraadeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu saxaabigu weydiiyay rasuulka ilaahayow ii sheeg wax haddaan sameeyo ilaahay igu jeclaanayo dadkuna igu jeclaanayaan nabigu wuxuu ku yidhi izhad fi dunya yuhibbuka allah adduunyadan ku zaahid ilaahay baa ku jeclaanaya dadku say igu jeclaanayaan waxa gacantooda ku jirta ka zaahid way ku jeclaanayaan ha u baahanin khalqiga
bal adigu noqo midka khalqiga ihsaanka u sameeya gacanta u fidiya kooda tabarta dara wax tara ihsaan u sameeya khalqiga ihsaan u sameeya gacantaadu midda saraha noqoto تهوسيس النقون ابو نبي قول صلوات ربي والسلام عليه سيداس درادت دروس تسقيمها بدل النبي انه ينسي صلى الله عليه وسلم كلها وابد بادا شرعنا وحو يمد الهينا النبي محمد الصادر صلوات ربي والسلام عليه ادمها ان لبد باديو ضوبضه ان لغا دحسارو عدوغيسا ان لغا بدباديو الدنيا iyo khatarteeda in laga badbaadiyo aakhira iyo mustaqbal wacan iyo janno in ilaahay tabaaraka ta'ala ridihiisa inuu tago bini aadamkan in la badbaadiya ilaahay kitaabka u soo dejiyay nabi maxamedna loo soo diray salawaatu rabbi wa salaam alayhi saas daraadeed dadka ruuxa ugu nasiib badan waa ruuxa dheefta ugu fiican ka qaatay wixii nabi maxamed la yimid salawaatu rabbi wa salaam alayhi hadigiisi sallu wa sallimu ala khatamil anbiya wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اكفنا بحلالك وعن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك